subax wanaagsan galab wanaagsan habeen wanaagsan qaraabo iyo axsaabba adduunka meel kastoo aad ka kala joogtaan waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada Kawawa Food Channel oo ay muddo dheer isugu kaaya dambeysay talow Kawawa Food Channel maanta muxuu idinkugu talagalay maanta waxaan diyaarinayaa ilaah hadduu raali ka noqdo tiramisu halkan waxaa diyaar inoogu ah sponge finger saddex baako oo sponge finger amba lady finger hadba qofka siduu u yaqaano waxaa kaloo halkan diyaar noogu ah brown sugar sokorta brownka ah halkan waxaa diyaar inoogu ah espresso cafe italiano halkan waxaa diyaar noogu ah laba baako oo vanilla ah oo midiiba ay tahay 8 gram halkan waxaa diyaar noogu ah cacao powder amba chocolate powder halkan waxaa diyaar noogu ah sokorta cad halkan waxaa diyaar noogu ah 6 xabo oo ukun ah marka hore waxaan diyaarsanaynaa stepka koowaad kadibna kafeegeeni aan ku qasi lahayn sponge finger amba lady finger ayaan diyaarinaynaa halkaana waxaa noogu saaran waa biyo caadi ah oo aan rabo hadhowtii baaquligan inaan dusha ka saaro oo aan asagoo vapoorahaas bes aan rabo in aan isticmaalo hadda waxaan bilaabayaa inaan isku qaso halkan waan idiin sheegay waa 6 xabo ukun ah sokortaan horta ku shubanaynaa sokorta waxaan u baahanahay ilaah hadduu raali ka noqdo qiyaastaan oo u dhiganta hal koob waa hal koob oo sokorta cad ah haddaadan haysanin bakeerigan qiyaasta loogu talagalay bakeeriga caadiga ayaad ku cabiran kartaa waa hal koob oo sokorta cad ah halkanna waxaa inoogu jira 6 xabo ukun ah sokortii ayaan ku darsaday hal xabo vanilla ahna waan ku darayaa sababtoo ah tastigaas ayaan ka rabaa dadka cadaanka ah waxay ku shubaan inta alcohol la dhahayo alcohol wad annaga maadaama aynan cuni karin waxa alcohol ku jiro test ahaan waxaan uga dhiganayaa vanilla powderkaas waa 6 xabo ukun ah waa hal vanilla powder ah oo 8 gram ah iyo koob sokor ah intii ayaan isku qasanayaa marka ilaah hadduu raali ka noqdo waxaan kaloo talaagada aan kala soo baxaan yaa mascarponeha iyo heavy milk waad ujeediin halkan waxaa diyaar noogu ah waa 2 baako oo ah mascarpone halkii baakaba waa 250 gram labada baakaba waan isticmaaleynaa it depends familka intuu yahay bad aniga dhalada aan rabo in aan ku isticmaalo ayaa xoogaa ii weyn haddii familkaaga yar yahay hal xabaad u baahan tahay kulle
hooyo kasta qiyaasta gurigeeda iyadaa taqaana. soo hadda waxaan rabaa inaan ku isticmaalo 500 gram oo ah mascarpone iyo extra thick waa double cream waa caanaha faadka ah oo faadkiisana aad u badan yahay. hadhuuti ayaan gadaalka isticmaalaynaa alaabtaas. soo qaraabaya xsaabba. hadda markuu saan oo kale cream u noqday baaquliga waxaan rabaa in aan saaro digsigan korkiisa. vapoorahaas qiiqa ah bas ayaan u baahanahay. 5 ilaa 10 minutes ayaan haddana mashiinka kula wareejinayaa. teeda kale lama rabo inuu baaquliga biyaha uu gaaro, haddii kale way adkaanaysaa, ukuntii ayaa iska kaa bedelayso. lama rabo inay istaabtaan. sidaas oo kale ayaa loo raali iga noqdaa. raalli iga noqdo, telefoon ayaa isoo galay. marka saan hore idinkugu sheegayba halkan ayaan asoo vapoorihii saaran ayaan makiinada kula isticmaalaynaa. vapooraha unbaa laga rabaa, waa la socodkiina umaleynayaa. markuu cream camal noqdo ayaan ka dejinaynaa 5 ilaa 10 daqiiqo inaad waa ay nagu filan tahay. waa inoo isku kaaya qabsaday. vapoorahaas unbaa laga rabaa, wax kale loogama baahna. soo hadda halkan ayaan imaaneynaa. ilaah hadduu raalli ka noqdo annada 5 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo kale ayaan haddana bannaanka aan ku walaaqaa, aan ku qasayaa. hadda marka waa diyaar. saas ayaa la rabaa in uu ekaado cream camal. hadda marka wuxuu diyaar u yahay in aan ku rido mascarpone, labadii baake ee mascarponeha
waa isla soconaya u maleynayaa qaraabo. labada baakaba waan ku shubaneynaa. waa wax aad u fudud, waa easy. waa wax aad u fudud, samayntiisa aadna u macaan. teeda kale markaad samaysid wuxuu u baahan yahay 2 ilaa 3 maalmood inuu talaagada ku jiro si uu maalinba maalin ka dambeysa aad ayuu uga macaanaanayaa. waadna fiirin kartaa marka aad samaysid isla markii lama cuni karo. waa inuu 2 ilaa 3 beri talaagada ku jiro amba frijeerka. waana wax aad iyo aad u fudud oo la socotiin mareynaya. so hadda mashiinkan waxaan rabaa in aan ku qaso si tartiib ah, ilaa hadduu raalli ka noqdo. number 1 keliya tartiib inuu isu dhexgalo ayaa la rabaa. isu dhexgalaa. joogtiin qaraabiyo xisaabka. hadda marka waxaan diyaarsanaynaa heavy mealigii. waa inaan hal koob oo heavy mealig ah diyaariyo. so heavy mealig waxaan u baahannahay halkaas koob ayaan u baahannahay. ilaa hadduu raalli ka noqdo. haddaad rabtid caadi sidaan ayaad u qiyaasan kartaa. koobka waa 600 gram waaye, hadda 300 gram oo keliya ayaan u baahanahay. marka adaaba qiyaasan kartid. waa caagan oo haaf ah.
so isla soconaya u maleynayaa marka hadda waxaan rabaa in aan isku shiido ilaa hadduu raalli ka noqdo markuu asna kareem camal noqdo ayaan isku darayaa labadoodii lama rabo inuu aad u adkaado waa kaasaa sidaas ayaa la rabaa in uu ku soo baxo isagana hadda marka waan isku qasayaa kadibna frijeerka amba talaagada hadba sidaad u taqaano ayaa saacad aan ku ridayaa ayuu ku jirayaa inta aan ka diyaarsanayno alaabteennii kale ee kafeyga ahaa waa ujeedina umaleyna markaad heavy miliga aad ku shubtid uma baahnid mashiin inaad ku qastid waxaad ku qasaysaa amba caagaas amba birta kale ee ukunta lagu garaaco ambaba lagu qaso waa wax aad u fudud samayntiisa saan hore in kugu sheegay aadna u macaan badan hadda waxaan u isticmaaleynaa birtaas looma baahna inaan ku qasno mashiinka iyo si fiican in aan isku dhex gelinno waaye isla soconaayo umaleynaa markaan si fiican isugu qaso waa in aan saan hore idinkugu sheegay talaagada saacad inuu noogu jiro inta aan waxeena kale ka diyaarsanayno waaye si fiican ayaan isku dhex geliyay saad ula socotaan hadda markaa waxaan geynayaa talaagada waan daboolayaa horta waan daboolayaa
uu saacad ku jiraa. inta aan ka diyaarsanayno kafeegii iyo waxyaabahani kale waan isku soo laabanaynaa. khiyaarta talaagada ayaan noo geynayaa. qaraab iyo xisaabka waan idinku soo laabtay. halkan waxaa diyaar inoogu ah sababtoo ama aan rabin waqtigiina qaaliga inaan dhumiyo maadaama laba qayb aan u baahanahay. hadda ayaan idin tusayaa habkaan u diyaarsaday. halkan ayaan ku shubanayaa waa makiinada lagu sameeyo espresso cafe. biyahana lama rabo inuu ka kormaro pointigaas halkaas ku yaallo. hadduu ka kormaro wuu daadanayaa saad la socotaan. amba waa inuu in yar ka hoos mara amba waa in uu la sigmaa. waa inoo diyaar. marka kafeegeeni ayaan hadda ku shubanaynaa. kafeegana waxaa la rabaa strong inuu ahaado, maaha wax biyo ah amba khafiif ah. sababtoo ah strong markuu yahay waa markaad cunaysid waa ka dareemaysaa testigaas, waad ka dareemaysaa espresso cafe inuu yahay uu ka dhadhamaayo. that's why looga badinayaa. marka sidaan unbaan u sameeyey waad la socotiin. oo waxaan diidayay 2 mar in aan idinku soo celiyo oon labada mar aan waqtigiina aan dhumiyo. waa fahanteen aan u maleynayaa. halkan waa hal xariiqin 2 qiyaasta ah. halkan waxaan ku shubanayaa marka brown sugar. waxaan rabaa in aan ku qaso espresso cafeegii aan sameeyey. waa hal xariiqin 2 koobka cabirkiisa yahay. waa kasaa waa hal xariiqin 2. kafeegii hore aan sameeyey ayaan rabaa inaan ku kordaro. kan kale inta uu inoo sii karaayo waxaan sii diyaarsanaynaa qaybteenaan kale. waxaan kaloo rabaa inaan test oga dhigo vanilla sugar oo 8 gram ah. sababtoo ah inta waxay ahayd in qamro lagu shubo ahuula qamrada la dhahayo oo aad strong u ah. dad annaga waa naga mamnuuc. that's why aan vanilyaha testi oo aan rabo in aan oga dhigto. waxaan kaloo ku darayaa cocoa powder. kafeegii expresska gudihiisaan ku darayaa. qiyaastana waa qaadada briiska lagu cuno haddaadan haysan middan miisaanka ah. waa qaadada waa 1 tablespoon. haddaad miisaankaas haysan waxaad ku cabiran kartaa qaadada briiska lagu cuno. marka halkaasna way noo dhammaatay. waan isku sii qasanaynaa intuu kafeega kale inooga soo baxaayo. ilaah hadduu raalli nooga noqdo. uu si fiican isugu milmaa.
sii furfuraneynaa buskudkeennii. qasab maaha 3 baak inaad ku samaysatid, bad aniga waan idin sheegay meesha aan ku sameynayo ayaa xoogaa ii weyn, marka heer kastana qiyaasta ku fiican ayagaa kasaaya. maahan saan horiga kugu sheegay dhibaato wax loo maraayo maaha, waa easy easy easy, waa easy amba fudeeyey haddaad samaynaysid. waa inaan si fiican isugu qasaa, kadibna markuu qaboobo unbaa buskudka la dhex dhigi karaa oo markaad safaysid waaysan aan ka wadaa. asagoo kulul kafeega ilaan gacantii lama gelin karo, buskudkiina aad ayuu u jilcaa waana kala jabayaa. kafeegana mar dhow waa inoo diyaar, waan isku dareennaa. that's it, waa noo dhammaaday. kafeega markuu noo soo kuu dhammaado weligaa ha iloobin, waa inaa walaaqi, haddii kale saaboori iyo strongi kafeega rasiinka dhanba hoos ayuu ku harayaa. marka hadda waan isku soo darayaa ilaa hadduu raalli ka noqdo. nagu filan intaas, haddaan u baahnaa dhowti kor ayaan kaga darsanaynaa. marka qaraabo waa inuu qaboobaa, hadda hore kama bilaabi karo. markuu qaboobo ayaan isku soo laabanaynaa ilaa hadduu raalli ka noqdo, iyadiyo wax walba diyaar noo yahay. ukuntii iyo aan diyaarsadayna jaa markaas saacad way dhan tahay inta uu talaagada amba frijeerka inoogu sii jiro. isku soo noqod wanaagsan. qaraab iyo xisaabba anaa idinku soo noqday. maskarboonihii ukuntii wixii aad la socoteen habkaan isugu diyaariyey. talaagada waa inooga soo baxday saacad kadib. halkanna waxaa diyaar inoogu ah cafe espresso, cocoa powder, vanilla, brown sugar oon rabo in aan buskudka sidaan unbaan u dhexgelinayaa, maaha in aan ku haayo. hadda ayaan idin tusayaa. buskudkii waa kaasaa, waa dhexgelinaysaa un. so waan ka baxshay, waan safayaa. marka sidaas ayaan rabaa in aan markaan leenka koowaad dhameeyo kadib aan maskarboonihii iyo ukuntii diyaarka inoo aheyd aan dhexgelinno, kor aan kaga shubno. waa isla soconaya umaleynayaa. waa aad ayuu u fudud yahay, aadna wuu u macaan yahay.
markaan leegi koowaad aan dhigo kadib waxaan saaranayaa korka ka marinayaa mascarponeha iyo ukunta. haddana leegi labaadaan sameynayaa, sidoo kalean sameynayaa. haddana mascarponihii iyaan korka marinayaa. waa sidii lasaanyada le iga dheh. sidii lasaanyada oo kale iga dheh. dhadhanka waxa u yeelaayo waa cafe expressada iyo chocolaadka qayb weyn ayay ka qaadanaysaa. qayb weyn dhadhanka waxa u yeelaayo tiramisuga waa chocolaadka iyo kafeega. dibenta kafeegana sida aad u karisid waa inuu strong ahaadaa, maha biyo biyo inaad ka dhigtid. strong espresso cafe ayaa testiga u yeelo saad la socotaanba. hadduu biyo kaa noqdo howshii aad qabatay oo dhan waa ka kac. hadda waxaan marinayaa marka mascarponeheenii ayaan korka marinaynaa ilaa hadduu raalli ka noqdo, inagoo weliba dhinacaanna aan daboolayo. inuu meel bannaanaada lama rabo. hadduu kaa dheeraado waad jibinaysaa un si markaasa. hadda waxaan marinayaa creamkii aan diyaarinay. creamka ayaan kaga shubeynaa. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا ملينا يا قرابة. leegi labaad ayaan rabaa inaan sameeyo haddana. aniga 3 leeg inaan ka dhigaan rabaa, 3 isa saar. haddii aad rabtid labadaad ku dhaafan kartaa. qofba isagaa og sida uu jecel yahay.
marba hadduu kuu deeqaayo dhalada aad ku safaysid waad ka dhigan kartaa 3 iyo 4 haddayba ku weyn tahay. maxaa kuu diidaaya? so aniga 3 ka dhigayaa maaha 4 markii 4 iima deeqaayo 3 ayaan ka dhiganaynaa ilaa hadduu raalli ka noqdo. أنا gacanta fududeeyaa si waqtigiina qaaliga aan u dhumin. qaraab iyo axsaabba I hope inaad jeclaataan. like commentiga subscribe-ka share-kana waa xaggiina. haddaad horey noola joogtay comment like, haddaad nagu cusub tahayna subscribe-ka iyo gambaleelka waa xaggiina. waan jeclaan lahaa markasta inaan wax soo geliyo but I don't have wallaahi waqti, but insha Allah waan dadaalayaa inta awoodayda ah. ilaah hadduu raalli ka noqdo. waxaan maleynayaa inaan aad u gacan cuslahay, raalli noqdaa. saan hore idinku sheegayba waa inuu talaagada amba frijeerka uu ku jiro 2 ilaa 3 bari kadib ayaa la cuni karaa. sababta saas loo sameynayo waxay tahay si uu aad iskugu dhex galo, markaas uu ka macaan yahay maalinba maalin ka dambeyso. tastigiisa aad ayuu uga sii macaanaanayaa. sidaas daraadeed ayaa loo dhahay 2 ilaa 3 bari kadib talaagada lagala baxo ee hal la cuno. cad yaraad goosan kartaa, haddaad rabto waad ku celin kartaa markasta. soo hadda waxaan saareynaa qaybtii kale. saan idiin sheegay maadaama aan haysto lady finger badan 3 baaka aan soo gatay, qayb kalan sii saareynaa insha Allah. kareemkana waa nagu filan yahay oo nagama kala go-aayo. soo maxaa noo diiday inaan 3 qayb sameyno? haddii kale talaagada inuu gala waayo mana fiicno. haddii waa uu noo yaalo biskutkaan ku samaysan lahayn waan sameyneynaa insha Allah. So
waa inaan si fiican ugu daboolnaa buskudka saan loo arkin. marka waa inaan qaybtii kala siis wadaa haddana. qaybtan ayaa ugu dambeyso saa la socotaan. marka waa inaan gacanta boobsiiyaa aan lay dhibsanin. sababtoo aniga sidaydaba maba jeclib cunto la boobsiis lagu sameeyo. waxaanba u maleynayaa in ay hallaabaysaba haddaan boobsiiyo. inaan waqtigayga geliyaan jeclahay si wax qurux badan oo macaan badan uga soo baxo. tiramisuga waxaa laga soo gaaray talyaaniga sidaad la socotaanba. kolley micno ayay leedahay tiramisu. micnaha haddaan idiin sheego, tira kor ii qaad waaye. tiramisu su waa kor, tirana waa iqaadid qaad. tiramisu kor ii qaad waa magac cajiib leh. tiramisu waa kor ii qaad. magaca fudud oo waxay u bixiyaan cajiib ah. waa markii la fasiro tiramisu. waa gabagabo hawsheennii. markaan kor kareemka aan ka saaro, korka waxaan kaga shubeynaa haddana cocoa powderka. soo talaagada ayaan iska gelinaynaa maalin 2 maalin kadib waa la cuni karaa ilaa hadduu raalli ka noqdo. annaga ilmahayga aad ayay u jecel yihiin. gurigaan aad looga jecel yahay. 1 maalin markuu ku jiraba wow maama ma sugi karno 2 maalin waan cunaynaa. xadkayga ma goosan karaa ya. waa wax aad u fudud aadna u macaan badan. aadis waa carruurtay u jecel yihiin, qof weyn iyo qof yarba infaacti. waan dhamaanay insha Allah.
waa inoo dhammaaday hadduu ilaahay raalli ka noqdo. waxaan rabaa marka sikan roos igu helay inaan kusoo cadaadiyo halkaas. so marka kareemkaan kor ka saareynaa insha allah. waa qaybtii ugu dambeysay saan la wada soconno. waana ku wada dhammeynayaa kareemka oo ma rabo inuu ii haro. inaan gees kasta ka daboolaa oon la arkin buskudka. so now it's ready. oo waxaan hadda korka kaga shubeynaa cocoa powderka. marka hore waa inaan wada daboolaa corner kasta. wow innaba caadi maaha. ani waxaan jeclahay kareemka inuu ka bato ayaan jeclahay, uu qaleel noqoninba. waa taankeena umaleynaya. marka hadda waxaan kor kaga shubeynaa cocoa powder, kadibna talaagada. powderkan kor kaga shubanaa, kadibna talaagada. waad arkaysaan oo umaleynayaa qaraabo. marka cocoa powderka meel kasta waa inaan gaarsiiyaa. hadduu dhalada kaa gaara dhibaata male, waad ka tirtiraysaa. meel kasta waa inaan kaga daboolnaa, oo lama rabo kareemka inuu ka muuqdo kor. waa isla soconaayo umaleynayaa qaraabo. so it's enough I think. markaasaa hawshayni way inoo dhammaatay qaraabo. marka hadda waa inaan meelaha koonaradan iska tirtiraa, kadibna aan tirtiro dhalada dusheeda amba geesaheeda, hadba saad taqaanaan. so warqad yar ayaan soo qaadanayaa si koonarada wixii naga gaaray aan u tirtirno. I hope inaad jeclaan doontiin qaraabiyo axsaabba. hawsheenni maanta waa inoo dhammaatay. waxaan rajaynayaa in la isku dayo. qofkii hore u yaqaanayna horuuba u yaqaanayba samayntiisa. maybe qofba inuu si nooca u samaysto. aniga laakiin sidaan ayaan u samaystaa.
وكاسا قرابة هدوه مركو أن دبولا يا كدبنا تلاقة أيام قلنا قرابة حساب وكاسا تيراميسو جيني سيداس أيوك صوبحي ولغة طلياني والطلياني أيا تيراميسو لغا سو غاري معناها هدان إذين فسيرة تيراميسونا وكر إيقات ومرة عجيبة تيرا وقادتا مي وانيغا سو نواكر وكر إيقات الله يسكو عيارا سو هدو وان دبولينا قرابي حسابا تلاقة أيان قلينينا 2 إلى 3 بر أيو أباهي هاي تلاقة كدب أيا لعني كرا تيراميسو قرابي حسابا kusoo dhawaada Kawawa Food Channel adduunka meel kasto aad ka kala joogtaan waxaan idin leeyahay ku waara caafimaad cimri dheer cibaado suuban guri kastana ilaahay waxaan uga baryay farxad aan dhamaanin guri kasta farxad aan dhamaanin ilaah duraale ka noqdo videogayga kale waxaan idin soo gelin doonaa wax macaan amba dolsho oreo cake ayaan soo gelinayaa ilaah duraale ka noqdo so adduunka meel kasto aad ka kala joogtaan waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ku waara caafimaad cimri dheer waa anigoo idin leh kusoo dhawaada Kawawa Food Channel like commentiga subscribe share kana waa xaqiina bye